السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعلنك أستاذ عبد الفتاح أفك الصومالي إذن كسو قد بنشري شاشدة وحين مركا سوق هذا عشرات حناء أو إلى ألف بيتو إلى هجاد إنه هذا مرة إنه اسكو حكة إريادة يقاب كلا سوحرو أو جملة الصميان أي إنه صوب كسو شرني إنه أو كقادنا إنه ست حنا وقادنا إنه حروف تسوي سوق حكتيا سيدي إنه أصو مرني هجاد أو كلا وحين قادنا إنه السجا أو شغل ديرة رأد مانتا رأ شغل دير بأنه قلنا إنه شغل دير أيانو قشان إنه سي إنه قصة إنه قصة إنه جملة رأدو أي هرمود كتاي وعينو نري را ري رو marka waxaanu sameeynay higaad hab higaadeed way ra re ri ro ru wa ra re ri ro ru seen horaba ugu soo qaadanay xarafkan marka qaadanayna raada oo ra waa inuu jumlad gelina ra marka xaraf lagu daro shibana ah waa inuu macna inoo sameeyaa mid daabaynu ku darsanay محو نقضي راد ومعروف والله يقان وين وضع نقانا راد وحو لما عنيا هاي مارك الراد اللي يراهدو ومعنويا لو ترجمه وحو نقونا يا ولما عنا نقونا يا آثار بولا معنا نقونيا وحين قادنا إن حرفك ري وين معنا ينوصل ميسا مركي إنه حرف قدر ومثال وحين قدر سني حرفك با وحين رواقي نقضي ريها ريب marka wuxuu sameeyay macna sifa ah oo ficil ahaan loo sameyn karo wuxuu marka noqday falkan ayaa wuxuu noqonayaa la macna yahay haritaan harid reebid been noqonaysa marka laga dhigo iyo da lagu daro reebid waa harid bala macnata laakiin markuu sidaa yahay oo kaligii yahay oo aan iidatan iyo daadu raacsanayn oo reebid ahayn wuxuu noqonayaa reeb amar warninka reeb waa amar marka ficilka amarku raacaya jumlada amarka abu galaya والله سأمرأيه يا هريدسه واختيارية وواحد اختيار له حرة أو سو سودونه هدو هري هدو شوكا بيسو دورتي إنه هرو مركا وحين قادنا إننا من السنة ري تنا نقادنا ري وين نروح قدرنا جاء بينو قدر سنة جاء مركا قدرنا ريق بعد واقع نقطة ريق ومطور كلاقو قضو عيرشا مطور كلاقو قضو عيرشا عيرشا أما مد بيوت هالنقطة أما مد شدال بهالنقطة ريق بالله وحين قادنا إن هذانا رأي ورو وإرجع رو
marka maxaynu ku dareynaa waa inaynu xaraf ku darnaa suu macno buuxa inuu ku sameeyo waa inuu macno inoo samayn karaa ya maxaynu niri ba baynu ku darsan muxuu noqday marka roob roob oo macnaheedu yahay dhibcaha cirka ka yimaada oo daruuruhu soo daayaan biyaha daruuruhu soo daayaan biyaha daruuruhu soo daayaan waxaanu kaloo qaadanaynaa xarafkii ku xigay oo ahaa ru waa higaadii ku xigtay marka ereyga ru oo kana wuxuu noqonayaa waa inaan wax ku darsanaa inaan wax ku darsano baa muhiim ah maxaynu ku darsanaynaa marka waxaynu ku darsanaynaa ru ba ruub bay noqotay ruub oo macnaheedu yahay geli war waxa ciida ruub dhulka ruub waa geli wax meel la gelinayo lagu qarinayo hoos laga gelinayo way ruub halka waxaynu ku dhamaaday higaadii xarfaha ee jumlada ku dareynay oo macnaha inoo sameynayay oo shaqalka dheer ee raada aha waxaanu dib u bilaabeynaa oo ku dareynaa oo haddana bilaabeynaa raada oo shaqal gaabana raada oo shaqal gaabana muxuu ahaa ra ri ro ru sukr ra re ri ro ru marka waa higaadeed habhigaadeedka saas uu qoran yahay iyadoo marka mid u qaadanayna inagoo jumlad ka dhigayna oo xaraf dheeraada ku darayna hadii uu macna sameyn waayana xaraf kale u raadinayna ilaa ay ka noqdo uu sameeyo macna uu ogaano ereyadu markay isku xirmaan sida ay macnaha u wada sameyn karaan waxaynu marka oranaynaa ra waa keligeed marka xaraf inaynu ku darsano wuxuu inoo sameynayaa macne hadduusan noo samaynayna waxaynu raadinaynaa ilaa waynu wadeynaa intaynu ka gaarayno inuu macno sameeyo waxaynu nimi rab baynu ka dhignay ba baynu ku darnay rab buu noqday rab waa doonitaan wuu rabaa wuu doonayaa waa isku macne doonid bela macnata waxaynu haddana jumlad gelinaynaa re oo xaraf kale lagu daray muxuu samayn karaa macno inoo samayn karaa macno weyn ayuu inoo samayn karaa marka lagu daro ومحين ورانين رد طبعا كدرنا رد بيننا
red waxaa ma samayn baabaynu ku sii darnay dhawaaqa ma samaynayso iskuma xirmaya ma samayn karaan laba shibano oo isku xiga oo aan gadaal shaqal kala socon ma samayn karaan macna baynu ku darnay red b buu noqday red b waa macne laakiin wuxuu macno buux noqonayaa marka da lagu sii daro oo muxuu noqday red b maxay tahay waa edbin ama garaacis ama garaacis ilaa uu halkaas soo gaaray macno ma sameynay waxaynu marka qaadanaynaa xarafkii ku xigay oo ahaa marka ri sidaasay macno ku samaysaa laakiin xaraf baa fuulaya waa inuu xarakaad fuulaa waxaynu saaraynaa xaraf ka mid ah xarfihii aynu soo baranay oo ah hamsa ri hamsa markay fuushay wuxuu sameeyey macne laakiin markii aan hamsadu saarnayn macno ma samaynayn ri carabkaagu waa jilicsan yahay dhawaaqa ka soo baxaya macno ma samaynayo laakiin ri waa garan kartaa waa aricad aricad markuu jamac noqdo riyo buu noqonaya riyo waa markay jumladu ay wadar noqoto wadar meesha carabiga jamac laga dhaho wadar ba af Soomaaliga lagu dhaho markay wadar noqoto waxaynu qaadanaynaa ra iyo oo ah ro waynu xaraf ku darnaa xarafkeenu ku dareena muxuu noqon karaa mid macna inoo sameeyo aanu eegno gaabaynu ku darnaa muxuu noqday rog markuu noqday rog macna sameeyay buuxa saddexda xaraf macna buuxay sameeyeen muxuu noqday macna sameeyeen gedi rog iyo gedi waa isku macna gedi marka gedi waa double d halkan gedi double da weeye d english weeye ma isticmaali karno laakiin af Soomaaliga marka laga dhigayo oo lagu dhawaaqayo isla xarafkan wuxuu noqonayaa gedi waa ka saasoo macna ku sameeyay rog waxaynu ku xigayaa ru marka xaraf lagu daro xarafku doono ha noqdo waa inuu macna inoo sameeyo hadduu sameyn waayana waa inaynu marnaa dariiqeenu marnay kuwii macnaha sameyn waayay si aynu u helno jumlad isku xiran oo macna buuxa samaysa marka waxaynuba gelinay ga muxuu noqday rug waa deegaan rugta reerku yaal meesha reerku degan yahay wacad weeye waliba reer guuraaga oo isticmaala guryaha ay degaan oo hore loo deganaa oo laga guuray ama waqti hore ahaado ama mid dhow ahaade rug baa la dhahaa deegaanada oo dhanna waa loo isticmaalaa magaalooyinka laftooda way noqonayaan guryaha magaalooyinku marka rug waa sida marka waxaanu halka ku soo gabagabaynay casharkeena maanta oo noqonaya xarafka ra oo lagu daray higaadiisi isagoo wata dheer mid gaagaaban iyo mid dheer ba shaqalkiisi wata oo shaqal higaadeeda baan waxaan ku darnay xuruuf si ay shibana ah si ay u sameeyaan macna buuxa halkaasaynuna maanta inoo joogaysaa insha Allah bidnillaahi kariim birina kasii wadeena ilaa iyo inta insha Allah aynu sii joogno dunida korkeeda waxbarashadeena waa inoo soconaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.